kumanaan qof oo muhaajiriin oo ay ku jiraan Soomaali badan ayaa lagu soo warramayaa in ay ku xaniban yihiin xuduuda ay wadaagaan dalalka Turkiga iyo Giriigga. dadkaas oo dhawaan ka ambabaxay Turkiga ayaa doonaya in ay galaan dalalka qaaradda Yurub hase yeeshee ciidamada amniga ee Giriigga ayaa ku horyimid oo diiday in ay galaan dalkooda. wararka qaar ayaa sheegaya in muhaajiriinta iyo booliska Giriiggu ay isku dhaceen kadib markii muhaajiriinta laga hor istaagay in ay galaan dalkaas. booliska Giriigga ayaa adeegsanaya sunta dadka ka ilmeysiisa iyo xeelado kale oo ay isaga celinayaan muhaajiriintaasi. qaar ka mid ah Soomaalida ku jirta dadkaas ayaa sheegay in ay aad ugu dhibaataysan yihiin halkaas loona geystay tacadiyo kala duwan, iyagoo intaas ku daray in ay ku soo noqon lahaayeen dalkooda hase yeeshee aysan suuragal u noqonayn. dowladda Turkiga waxa ay sheegtay in ku dhawaad 20,000 oo muhaajiriin ah ay ka gudbeen xadka dalkaas iyagoo ku sii jeeda qaar ka mid ah dalalka Yurub. arrintaas ayaana ka dambeysay markii dhawaan uu Turkigu xadkiisa albaabada u furay. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu muuqatay in uu ka dhamaaday dulqaadkii uu u hayay qulqulka muhaajiriinta kadib markii 33 askari looga dilay duqeyn ka dhacday magaalada Idlib oo ku taala waqooyiga dalka Suuriya. Erdogan waxa uu sheegay in Turkiga uusan xamili karin muhaajiriin cusub oo dalkiisa ku soo qulqulaya, waxaana intaa ku daray in midowga Yurub uu uga baxay ballama ay la galeen dalkiisa sanadka 2016 sidaas daraadeedna ay muhaajiriinta u fasaxeen in ay ka talaabi karaan xuduuda Turkiga oo ay u gudbi karaan dalalka qaaradda Yurub. Giriigga waxa uu sheegay in albaabada ay ka xirteen muhaajiriinta sida sharci darrada ah doonaya inay ku soo galaan dalkooda aysan aqbali karin in ay soo talaabaan. Turkiga ayaa waxa ku sugan muhaajiriin gaaraysa 3,700,000 oo qof oo badankood ka kala yimid dalalka Suuriya iyo Afghanistan.